sidii caadada ahayd waxaan rabaa inaan idin asiiyo xogtii ugu dambeysay update ah oo ka soo korortay xaaladaha ee coronavirus Soomaaliya 24 saac u dambeeyay waxaa soo kordhay 41 xaaladood oo positive ah 31 waa lab 10 waa dhadig halkiis oo kamid ah wuxuu ka yimid gaalkacyo South-ka oo galmudug ah laba bukaan waa dhimatay Ilaahay ha u naxariisto laba kalena waa caafimaaday tirada guud ee coronavirus Soomaaliya la xaqiijiyay hadda waxa waaye 328 dhimashada guud ahaan waxay noqonaysaa 16 xaaladood inta bogsootayna waxay noqonaysaa 8 qof dhimashada boqolkiiba 69 waxa waaye boqolkiiba 50 ka badan waxa waaye dadka da'dooda ay ka badan tahay 50 waxay u badan yihiin intooda badan dad xaalado caafimaad oo kale cudurro zaid yani cudurro chronic ah qabay boqolkiiba 69 dadka da'dooda waxay ka yartaa uu ku dhacay cudurka waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 40 nambarada waa korayeen sidaad u jeedaan xanuunkii waa fidaya waxa aan ku celcelinaynaa waxa waaye ka hortagga wuxuu ka fiican yahay daaweynta inaan ka wada tashano oo isku ogaano oo aan ka wada ballanno mar walba sidii cudurkan loo xakameyn lahaa wacyigelinta in aad loo badiyo waa bil Ramadaan barakaysan Ilaahay fadligeeda ha nagu xafido Ilaahay ha noogu caafiyo inta cudurka uu qabo sida uu ku socdo iyo aafadiisana Ilaahay ha naga ilaaliyo inaan ku dadaalno walaalayaal in yacni meelaha ciriiriga laga fogaado in bixitaanka aanan danta ku jirin oo aanan muhiimka ahayn la joojiyo in il gaara lagu ilaaliyo dadka xaaladaha caafimaad guud yacni aysan fiicnayn ama difaacooda jirka uu yaryahay in nadaafadda aad loogu dadaalo in gacmo dhaqashada saabuunta iyo alcohol iyo wixii qofba mar uu awoodo uu badiyo gacmaha la dhaqo ugu yaraan 30 daqiiqadba mar ilaa 20 ilbiriqsi guud ahaan waa ku celcelinaynaa cudurka waa cudur aad u fidaayo xaaladaha qaarkoodna aad uu yacni khatar ugu yahay xaalada gaar ah in laga fakaro mar walba sidii looga hortagi lahaa cudurka waa jira fididiisa saad ka garanaysaan maalinba maalinta ku xigto waa sii kordhaya inaan wada dadaalno aan ducaysano marka hore marka labaadna aan kala fogaanshada nadaafadda iyo dhageysiga takhaatiirta iyo dadka khubarada ku takhasusay arrimahan caafimaadka in la dhageysto 449 qofka haddii uu dareemo calaamadihii cudurka in qaarkood uu qabo inuu wacdo nambarkan mar walba ku celceliyo la talin la siin doono xaaladaha loo arkay in isla markii loo wareejiyay isbitaalada loogu talagalayna runtii isla markii waa la badiyay servicekii adeegii caafimaad ambulance-ka waa la badiyay nambarka waa la badiyay nambarada la soo wacanayo habeen iyo maalin waa la jawaabaya qofkii wuxuu awood u lahaanaa isla markii in la raadiyo la keeno isbitaalka si daawo degdeg ah u helo Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu na wada caafiyo inuu cudurkan aafadiisa iyo shartiisa na dhaafiyo aad u mahadsantiin